السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواء دمان صاحبيال مقعي وعبد الكريم محمد. جنال كان داوانو سيدنا وديتور سيكي. جنال كان وحان كسو قدبيا مقالة عافمات oo suugu jiro talooyin iyo cashar ah. Fadlan rukumo janaalka si ku soo gaaraan muuqaalada cusub. Muuqaalkan waxa la wayna kaga hadlo noocyada madax xanuunka, waxyaabaha keeno, astaamaha, sida loo daweeyo iyo sidoo kale talooyin muhiim ah oo anfacaya qof walba oo leh madax xanuun. madax xanuunka waa xanuun qofka laga qabanayo madaxa iyo hareerihiisa. madax xanuunka wuxuu leeyahay noocyo aad u badan, balse muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ku sharxo noocyada ugu caansan madax xanuunka iyo waxyaabaha keena. nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa tension headache. tension headache af Soomaali ahaan waxaa loo yaqaanaa madax xanuunka dhafoorka, oo qofka wuxuu xanuunka dareemayaa dhinacan hore ee dhafoorka ama qaybta hore ee wajiga. madax xanuunkan oo loo yaqaano tension headache sida magaciisa ka cad wuxuu la xiriiraa tensionka ama emotionka oo ah dareenka qofka. oo tusaale ahaan qofka hadduu dareenkiisa isbedelo oo aad u xanaaqo kale, madax xanuunka noocan oo kale ayaa ku dhici kara. marka madax xanuunkan saan sheegnay wuxuu la xiriiraa emotionka ama dareenka qofka la xiriiraa. waxyaabaha keena tension headache waxa ugu horeeyo walwalka badan. qofka hadduu aad u walwalo madax xanuun ayaa ku dhici kara. madax xanuunkaas waa tension headache. sidoo kale waxyaabaha keeni karo tension headache waxaa ka mid ah stresska, shaqada aadka u badan iyo hurdo la'aanta. haddaba waa maxay calaamadaha ugu badan ee lagu arko qofka qabo tension headache? calaamadaha ugu badan ee lagu arko waxaa ka mid ah qofka culays badan inuu ka dareemo madaxa, gaar ahaan qofka inuu moodo inuu madaxiisa soo dhacayo oo kale. marka waxaa culays badan saarmayo dhinaca fooda ama dhinaca hore ee wajiga. madax xanuunka labaad waxaa loo yaqaanaa migraine headache. migraine headache waa nooca ugu badan ee madax xanuun ee ku dhaca bulshadeena Soomaalida ah. madax xanuunkan af Soomaali ahaan waxaa u naqaanaa madax xanuunka goonjabka ama madax xanuunka dhanjafka. labadaas magac waa loo yaqaanaa. madax xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada la kala dhaxlo, oo tusaale hadduu familga qof ka mid ah aabbo ama hooyo uu hore u qabay, waxaa laga yaabaa inuu ku soo gudbo xanuunkan. haddaba madax xanuunka goonjabka maxaa keeno ama maxaa sababo? inta badan waxaa sababo inay barar ku yimaadaan marinada dhiigga ee maskaxda ku jiro. marinada dhiigga oo loo yaqaano blood vessels markii barar ku yimaadaan waxay culays saarayaan ama waxay cadaadis saarayaan neerfaha ku yaala maskaxda. markaas qofka wuxuu dareemayaa ama cadaadis badan ayuu ka dareemayaa madaxa. madax xanuunkan inta badan waxaa sababa marinadaas dhiigga in ay xinjiroobaan ama inay barar ku yimaadaan. madax xanuunkan aan soo sheegnay oo migraine headache wuxuu ku dhacayaa dhinac ka mid ah madaxa. tusaale wuxuu ku dhici karaa dhinaca midig ama dhinaca bidix. marka markuu madaxa ku xanuuno qayb ka mid ah madax xanuunkaas waxaa loo yaqaanaa migraine headache. calaamadaha ugu badan ee lagu arko qofka qabo xanuunkan goonjabka ah waxaa ka mid ah number 1 lablabo iyo matag. number 2 qofka oo dhibo iftiinka. iftiinka oo isugu jiro iftiinka cadceedda iyo iftiinka nalka ama leerka. labadaasba qofka way dhibayaan oo mar walba qofku wuxuu jeclaysanayaa inuu qol mugdi ah ama meel mugdi ah uu seexdo. number 3 waxaa ka mid ah qofka oo dhibo codka. codka oo isugu jiro qaylada dadka iyo sidoo kale qaraacidda albaabka iyo wixii la mid ah. marka guud ahaan qofka waxaa dhibaya codka iyo leerka. sidoo kale astaamaha lagu arko waxaa ka mid ah inuu qofka xanuuno dhinac ka mid ah madaxa. saan hore soo sheegnay madax xanuunkan goonjabka wuxuu ku dhacaa dhinac ka mid ah madaxa. marka dhinac ka mid ah madaxa hadduu ku xanuuno waa astaan ka mid ah madax xanuunka goonjabka ah. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah dadyooga qabo xanuunkan goonjabka ah maxaa ku kicin kara ama maxaa ku siyaadi karo madax xanuunkan? waxyaabaha kicin karo ama waxyaabaha siyaadi karo madax xanuunkan waxaa ka mid ah number 1 sigaarka. number 2 qofka inuu isticmaalo waxyaabaha aadka u dhanaan. number 3 shukulaatada iyo waxyaabaha macmacaanka iyo sidoo kale qaylada iyo iftiinka. marka waxyaabahan dhan aan soo sheegay waxay qofka ku kicin karaan madax xanuunka. haddii uu qofka uu hore u qabay madax xanuunka goonjabka uu rabo inuu ka hortago, waa in uu ka hortagaa waxyaabaha aan hadda soo sheegay oo kicin kara madax xanuunka, sida inuu iska ilaaliyo meelaha buuqa badan iyo walwalka. sidoo kale inuu ka fogaado iftiinka aadka u badan, uusan isticmaalin habeenkii waqti badan mobilkiisa, ama uusan ku isticmaalin qol mugdi ah. madax xanuunka saddexaad waxaa loo yaqaanaa cluster headache. sidaa sawirka ugu jeedid, madax xanuunka cluster headache wuxuu ku dhacaa isha iyo hareeraheeda. marka qofka wuxuu xanuunka dareemayaa dhinac ka mid ah wajiga, gaar ahaan dhinaca isha xigta.
marka calaamadaha ugu badan ee xanuunka lagu arko waxaa ka mid ah qofka in ishiisa casaato iyo sidoo kale xanuun iyo barar inuu ku yimaado isha. noocan madax xanuun ee cluster headache inta badan saameyn aad u badan ma keeno oo qofku wuxuu hayaa muddo kooban. tusaale qofku markuu ku dhaco kala madax xanuunkan qofku wuxuu haynayaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo. muddo kadib xanuunka uu kusoo noqonaya oo wuxuu haynayaa sidaas la mid ah 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo. marka madax xanuunkan aan ku sheegnay cluster headache qofku waxaa ku kici karo dhafarka aadka u badan. marka waxaa haboon qofka hadduu isku arko madax xanuunka noocan ah inuu waqti badan habeenkii u seexdo uuna iska ilaaliyo habeenkii inuu meelaha mugdi ah ku isticmaalo mobilkiisa. haddii aad isku aragtay calaamadaha hadda soo sharxay ama calaamado ka duwan waxaad isticmaali kartaa xanuun baabi'iyaha caadiga ah ee paracetamol. laakiin ani ahaan waxaan kula talin lahaa inaad tagtid dhakhtarka kugu dhow si uu kugu soo qoro daawada kugu haboon aadna martid baaritaano lagu hubinayo madax xanuunka nooca ku hayo. mar walba daweynta waxaa ka wanaagsan ka hortaga. haddaba si aad uga hortagtid madax xanuunka waxaad raacdaa talaabooyinka hadda kuu sharxi doono. number 1 inaad maalintii cabtid biyo kugu filan ugu yaraan 3 ilaa 4 litir maalintii. number 2 inaad hurdid habeenkii hurdo kugu filan ugu yaraan 8 saacadood. number 3 inaad akhrisatid ama aad badisid akhriska quraanka kariimka ah. number 4 inaad ka fogaatid isticmaalka mukhaadaraadka sida sigaarka oo kale. number 5 inaad jimicsi sameysid iyo ugu dambeyn inaad ka fogaatid meelaha qaylada leh iyo walwalka badan inaad iska ilaalisid. halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlayay noocyada madax xanuunka iyo sida loo daweeyo. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan waxaan kuu rajaynayaa khayr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.